madaxda xusbiga iyo intiina maqlaysaaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu labaadka dacwadii xildhibaan ka dhanka ahayd xildhibaanadii lumiyay xubinnimadooda go'aankoodii baanu maanta ka sugaynay komishanka qaranka iyaguna qaabkii sharciga ahaa ee la mari lahaa ee tooska ahaa ee aanu ka filaynay marka horeba ayuunbay mareen taas oo ah in maxkamadda la geeyo oo maxkamaddu go'aan ka soo qaadato arrintaas talaabadu tii baanay maraysaa waana dariiq fiican wixii aan ka tegayna guddoomiyaha guddida loo saaray arrintan oo ah maxamed cali muuse ayaa idin siin doona warbaahintana hore ugu jirtay 6dii bishii 2017 waxaa ogeydeen in xildhibaano ka soo baxay xisbiga UCID ay xaflad loogu sameeyay kulmiye uu sameeyay isla markaana ay ku cadeeyeen inay ka baxeen xisbiga UCID sida awadeedna sharciguna uu aqoonsan yahay inay lumiyeen xubinnimadoodii xubinnimo xisbiga ay ka soo baxeen isla markaana ay jirtay inaan u gudbinay in la bedelo xildhibaanada isla markaana aan u gudbinay liisaskii kaydka ahaa ee geli lahaa bedeli lahaa nimanka lumiyey xubinnimadoodii maanta almuhiim waxay inoo sheegtay guddida komishanka qaranku wuxuu noo sheegay maanta in arrinkaasi u baahan yahay tafsiir sharci oo ah in magaranaysahay maxkamadda ay khusayso la geeyo isla markaana maxkamaddaasi markay soo xukunto kiiska lagu soo celin doono isla markaana ay shardi tahay inay aqbalaan wixii maxkamadda ka soo baxa waana arrin aanu filaynay inkastoo uu bayaan yahay arrinkani oo aad ogeydeen iyagoo xitaa ku tiiqtiiqsanaya in ay ka baxeen iyaga iyo taageerayaashoodiiba sida aawadeedna aanay u baahnaynba caddayn kale aanay u baahnayn ee xeerarka iyo shuruucda dalka u taalla ay sheegayso in isla markiiba la bedelo marka waannu ku qanacnay komishanka in maxkamadda ay noo gudbiyaan wax alla waxaannu ka qabnaana ma jirto waanay ku mahadsan yihiin hawshaasina sideedii bay u socotaa waana hawl aannu ku faraxsannahay mana nagana dhammaan mayso ilaa iyo ay go'aan ka gaadhisa maxkamadda sare waana wax sharciya oo dastuuriya haddii sharcigu sarrayn waayana wax alla wax inoo kala hadhayaa ma jiraan sababta keliya aan ku caddaynayaana waad ogtihiin oo waxaa jiray dhowr jeer oo aad ogeydeen marka laga reebo xildhibaanada kale ninka la yidhaha cabdishakuur cidin oo aad ogeydeen waa mar saddexaadkii laba goor hore wuxuu sheegay inuu ka baxay xisbiga maantana waa idinkii arkayay inuu ku tiiqtiiqsanayay xitaa siduu uga sarreeyay sharciga inuu ku tiiqtiiqsanayay taasina ay ku noqonayso nusqaan ay ku noqonayso in laga gabbado ama laga indhaqarsado in lagu bedelo sifaha sharciga iyo abaalka uu ninkaasi magaranaysaayey uu gudo in lagu bedelo aanay noqonayna in looga gabbado waxaad mooddaa inuu ka wan yahay maxkamadaha inuu ka wan yahay waxaad mooddaa inuu sharciga ka sarreeyo waxaad mooddaa inuu ku fadhiyaba meel ka sarraysa dalka waxaannu markaa doonaynaa in sharciga lagu soo dabaalo xildhibaanada ka baxay xisbiga si ay u noqoto dariiq sax ah oo lagu hagayo ama loogu jidaynayo kuwa dambe ee soo socda si ay uga mid noqdaan xisbigii ay ku jireen oo contribution wixii ay ku lahaayeenna dee looga qaado hadday taageero tahay hadday hiil tahay ama hadday subscription tahay dalkuna saasuu ku soconaya sharciguna saasuu ku soconaya xeerarka iyo dastuurkuna saasay noogu soconaya hadduu dalka laakiin uu sarrayn waayo sharcigu hadduu sarrayn waayo waxay noqonaysaa dee in meesha dee la kala foofay noqonaysaa